السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. أعظم الله أجركم وأحسن عزاكم وغفر لميتكم. ولا ليال وحن ربعنا مدة الصوماليات جودهان وتعزين ما أنت قريح كدع مجال كيسمايو يدتك بنايا كل انتي رحمهم الله رحمة واسعة وإنا لله وإنا إليه راجعون. si gaar ahaaneed waxaan rabaa inaan u soo qaado gabadha la yiraahdo Hodan Naaleeye ee ku dhimatay qaraxas maanta ka dhacay halka iyo dadka badan ee kula dhintay runtii gabadhaas baan waxaan rabaa wax yar inaan ka soo qaado waana hadallada iyadu ay tiri iyo inta aan ka dhageystoon arkay waxay ahayd qof ku haminayo oo hamigeedu uu yahay siday sheegtay diinta islaamka inay barato waxay ahayd qof ku haminaya inay samayso wax khayr ah oo ka hara waxay ahayd qof u jeedsaday sida ka muuqatay inay Allah subhanahu wa ta'ala runtii wax badan ay ku raali geliso ay samayso ummadeedana ay wax u qabato waxay soo gudbinaysay suurada dhabta ah iyo muuqaalka dhabta ee dadkeena Soomaaliyeed iyo wadankeeni haday isbitaal noqon lahayd haday noqon lahayd dadka rafaadsan ee baaba'san ayay soo gudbinaysay haddaba intaasoo la isku daray waxa ii muujinaysaa xadiidkii rasuulka sallallahu alayhi wa alihi wasallam uu lahaa ahabbu an-nas ila Allah anfa'uhum lin-nas alla dadka ugu jecel yahay dadka waa dadka anfaca oo wax u qabta weeye ولذلك بور حديث كلا رسول صلى الله عليه وآله وسلم مركو الله جعل هذا قفك إلا وحال دتك والله أجعله ودتك أنفعه مركا دت بدن بأنفعيسي أو حقوق بنيسي أو وركو السوق جد بنيسي أو دتك لو ذا جنيسي سي ومضوا دتك رفاصا وحقوق قبطان هذا مركو قفك ربي جعل هذا حديث صحيحها جبريل بوشيغا يا ودها يا جبريلو هبل وان جعل هذا aduguna jeclow jibriil warku jeclaado malaa'igtu u gudbinaya malaa'igtuna waxay u gudbinayaan dadka ardada iyo dhulka jooga ayay u gudbinayaan dadka oo dhan oo jecel baad marka arkaysa haddaba waxaan rabaa inaan tusaale u soo qaato runtii gabadha maanta geerideedii ee miidiyaha Soomaalida social media ka gees waa isqabsaday dadkuna fanaa naas calayha wax fiican bay runtii ku wada sheegayaan haddaba waxa fiican ay ku sheegayaan waa shaahid iyo markhaati weeye waxa fiican ee dadka lagu sheegay antum shuhada Allah fi ardi dadku waa shuhada iyo markhaati weeyaan sidaas daraadeed waxaan rabnaa walaalayaal inaan runtii aan ugu duceyno qofka dhalinyarta gabar yar bay ahayd oo dhalinyara gabar waxay ahayd wadamada reer galbeedka Canada iyo North America ku barbaartay haddana maca dalika waxay dooratay inay dadkeedii la noolaato inay u tagto inay suuradooda dhabta soo gudbiso marka waxaan rajaynaynaa inay ahayd wax fiican Ilaahay subhanahu wa ta'ala husnul khaatima inuu haleeshiyay meel fiican Ilaahay subhanahu wa ta'ala wadadeeda ay markii dambe ka dhigatay waxaan rabaa inaan walaalayaal u wada duceyno intii ay ka tagtay oo caruurteeda ay ku jiraan ugu horeeyaana Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha xifdiyo ha ilaaliyo reerkii ay ka baxdayna samariya iimaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku arsaaqo iyadii intii la geeriyootay oo dhan oo zawjkeedu uu ku jiraan dad badan oo Soomaaliyeed oo muslimiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala huwa naxariisto allana subhanahu wa ta'ala qabriga rawda min riyaad al-janna huwa dhigo cadaab al-qabriga allah ka badbaadiyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala jannadiisa Ilaahay ku martiqaado dambigoodana maghfuuriin allah ka dhigo Ilaahay subhanahu wa ta'ala afgiisa iyo musaamaxadiisa allah siiyo wajazaakumullahu khayr wa barakallahu fiikum wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh